اسكفيريها sool sanaagu cayn ayaa amniga hoolka shirarkan ay si gaara markaasi u sugayeen ciidamo markaasi dhowaan loo tababaray ilaalinta amniga gudaha munaasabada Rabbibari ayaa ugu horreyn baa waxaa ka hadlay Sheekh Axmed Nuur oo wax badan ku dheeraaday shirarka noocan oo kale ah in loo baahan yahay inay mar walba ku saleysnaadaan cabsida Alle ilaahayna ku anfaco dambigeena Allah dhaaf muraadkaynu leenahay Allah inoo wanaajiyo وحنا الله ينكاه يشني آخرية دم وحنا الله ينكاه إلهي مصلحة هذا ونكسر الله ينسلسي وحي ما نكتاين الدلب إنه خيرات وضدك يضلك وطنا الله ينسي. سجل فانتي سود الشدي أيضا القرآن كريم كيقول كالربي يولي حديث النبي هو سو مركزي كل شيء لو بهاي هاي إنشروا إنها أي صلي أساس بونغ. waxa shirarka la yiraahdo oo ka hadlay ayada Allah subhanahu wa ta'ala oo shirarka inuu uu noqdo shirku shir waafaqa ilaahi wuxuu raali ka yahay Allah wuxuu subhanahu wa ta'ala la khayra fi kathir min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin intaas macnaha ay xambaarsan tahay waxa weeye Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri kulamada iyo shirarka ay ma jiro ilaa 3 shir mooyaane Allah subhanahu wa ta'ala wuu tilmaamay oo wuxuu yiri dad sadaqays amriya oo waxa la isugu yimi ay tahay wanaag iyo cid waxa weeye isqabatay dhexdhexaadinteeda oo islaax laga shaqeeyo shirka kan si uu noqdo mid la jaxay oo danta laga leeyahay laga gaaro hadii waxa weeye macruuf laga shaqeyn waayo oo wax Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali uu ka yahay laga shaqeyn waayo hadii waxa weeye la khilaafo sida Allah subhanahu wa ta'ala uu raaliga ka yahay faa'iidadiisu way yaraanaysaa si marka waxa weeye Allah subhanahu wa ta'ala isaga ayaa arrimuhu gacanta ugu jiraan isaga ayaa maamulaya si way arintu inoogu hagaagto oo danta la leeyahay oo toosnaato waa inaynu mar walba xusuusnaano Allah subhanahu wa ta'ala raali gelintiisa أنت تكذب أيها الجدومية جودك قابقابة الشروينها خاطمه حسن علي أو يوسف وكلمتي مركزي وكلمة لي أوركا من رهدي جودك خاطمه والكاسي كسيدي حسن علي يوسف جدومية جودك قابقابة شروينها خاطمه تو أما خاطم الله لقف لي عن مدة با إنه كرده ديجان كاتله قيمة يقايا عليه marka halakan aad iyo aad waxaan uga mahadnaqayaa dadweynaha bulshada sool sanaag iyo cayn ciidamada qalabka sida dhalinyarada haweenka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee ka soo qayb galay shirkan kuwa jidka ku soo jirana ilaahay waxaan uga baryayaa inay soo nabad yimaadaan waxaana ku xigay caaqil maxamed askar jaamac oo ku hadlayay afka cuqaasha deegaanada sool sanaag iyo cayn oo sheegay in munaasabada tan Rabbibariga looga jeedo in markaasi go'aamada ka soo baxaya shirweynaha qaatum ay noqdaan kuwa guuleysta hayno tahay hal qoysa dan kaliya himilo kaliya bayno tahay sida aynu u qaadanay mabdaahaana waa sida waa la isku raacay sidii loo qaatay baana loo fuliyay oo aynu maanta goobta ku joognaa waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhammaan intii lahayd fikradda intii u soo hawl gashay ee dhalinyaradii 15 group 15 loo yiqiin ee soo koobtay dalweynaha waxaan aad iyo aad halkan uga mahadnaqayaa
cid allaale iyo ciddii iska xil saartay fikrad ahaan iyo ficil ahaanba inay gaadhsiiyaan mabda'a aynu qaadanay sidaas darteed waxaan ku soo dhowaynayaa madasha tan shirka ee ah taleex dhulbahante gudo iyo dabadba ciddii aan goobta joogin cabdul maxamed cali haybi oo ah fayeenka shirweynaha khaatumo ayaa isaga lafahantiisa ka hadlay doorka ay ku leeyihiin diyaargaraynta shirkakan iyo weliba ujeedada laga leeyahay waxaana uu sheegay in la doonayo in shirweynahan ay ka soo baxaan waxyaabo anfaca dadka u soo ida deegaanada sool sanaag iyo cayn oo aynu weliba khayr ku furannay oo aynu duco iyo quraan akhris iyo maxaan ku dhahdaay isturxaan bixin aynu ku furannay waa ilaahay xamdigii meeshii ugu wanaagsanaydna waynu ka abaarnay alla bari iyo maxaan ku dhahaa quraan akhris iyo maxaan ku dhahdaay isturxaan bixin baa maalmaha u horreeya haddii alla idmo sida qorshuhu yahay uu shirku u socon doonaa ergooyinkii sida aynu ognahay walowba rag xoog lihi joogo guda iyo dibadba haddana wuxuunbaa kulli qaar waxaa dhildhiman yihiin ha yeeshee waa uu nin gaari soo saaran iyo nug aynu ka sugaynay wadamadan jiiraankeenna bay soo wada taagan yihiin sidoo kalena qaar ka mid ah gabdhaha qurba joogta oo weliba ka socday wadamo aad u fogfog oo waqooyiga Amerika ayaa ka hadlay siday ugu faraxsan yihiin in shirweynaha khaatumo oo la isugu yimaado degmada taariikhiga ee Taleexa maanta waxaa farxad ah ilaaha weyne waaxidka ee joojiyay taariikhda cusub ee qormaysa waxaan leeyahay khaatimo guul suugaanyahanka iyo abwaaninta deegaanada sool sanaag iyo cayn ayaa doorkooda suugaaneed ku soo gudbiyey shirweynaha khaatumo munaasabada lagu furayay caalamka washirarkeena carabiyo calool kala bedelaan cebi wow halise cadowga hajabu khaatumay curatay gushii idinko toobad celinaya oo qiraya tawxiidka kana tirtiray calooshana wixii tuunsanaan jiray qalbigana toddoba maydhay oo taa nadiifeeyey oo talada miisaamaya oo soo turxaan bixiyey waxaa tar ilaahidin tolkii waa idin sugayaaye tufku khayr layaal noqnoqda iyo tiir biraan jabin oo laba talaba tiiroo rabbina idinku taageerye كبح أبوه ورقله بس مكوبنانا أبوه تنحلى إمام Give it up for the wishes to you.